wadaadada Soomaaliyeed ee mansoolayaasha ah kuwooda sida hagarleyda ahna dalkooda ugu adeegay ka badan wax la tirin karo, ka badan wax hal iyo laba barnaamij lagu soo koobi karo, ka badan wax murtidoodii iyo halgankoodii inta dhowr bog lagu soo koobo lagu doodo in laga salgaaray. bulshada Soomaaliyeed way ogtahay haddaysan maanta ogeyna bariba way kala garan mansoolihii wanaaggeeda ku guubaabiyey ee anshaxyada xun kala direeray iyo midkii hagardaamadeeda ka taliyey ee kala tageeda ku farxay. hibada maanso ninba si ugu adeegay, ninbaa gabayga iyo geeraarku ugu muuqdaan hub waxtar leh oo sida ugu habboon oo lagaga faa'idi karaa ay tahay in si qurxoon oo hufan ummadda loogu gelinsiiyo qiimaha midnimada, qiimaha kaniibkeenidda halganka nolosha wacan lagu halabsanayo, qiimaha nabadda iyo isbahaysiga qowmiyadeed ee aan la'aantiis jiritaanka raaxada leh loo hawoon karin. dalka uu mansoolahaasi ku nool yahay waa yaabe waxaa haddana ku nool mansoole abuurtiisu iska hortaagto inuu ummaddiisa farta ugu fiiqo tubta ay nolosha wacani ugu jirto. mansoole hoogga iyo ba'a dadka iyo degaanku ay caano iyo nabad u yihiin oo markaa oo keliya uu waxyiga maanso buuraha jinka kaga soo dego. waa run oo sida dadka kaleba u kala duwan yihiin ayay mansoolayaashuna u kala duwan yihiin. nin aqoon leh oo waxaa jira aqoontiisa dadku ka liibaano iyo mid inuu wax ku dumiyo mooyaane aan kolnaba wax ku dhisin. waxaa jira nin xarfadda siyaasadda hibo u leh oo hoogga iyo halaagga ku soo socda ummaddiisa inta goori goor tahay gaashaan bir ah uga sameeya. waxaana jira siyaasi kale oo ay isku dal ku nool yihiin oo muraayaddii uu ishordhigaba dantiisa qofeed ama kooxeed ka dhex arka. waa run oo sida ay kuwaasi dad u yihiin ayay mansoolayaasha iyo fannaaniintuna u yihiin dad wax walba laga fili karo. run kalese waxaa ah sida siyaasiga iyo aqoonlaha ay bulshadu ula xisaabtamayso si la eg inay mansoolaha iyo fannaankana ula xisaabtamayso oo ay maalin maalmaha ka mid a kala garan doonto wanaaggeeda kii inta meesha dheer ka arkay u tilmaamay iyo kii ka jeediyey ama ku mashquuliyey xasarad sokeeye oo ay dhowr sabaan dib ugu gurato, isagoo dan isaga ku kooban uga gol leh amase koox uu hoday carabkeeda ku hadaaqaya. bilowgii qarnigan wixii uu sameeyey darteed weeye waxa aynu ku maamuusnaa mansoolihii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan. taallada aynu u dhisnay, dugsiyada aynu ku magacownay iyo xuska joogtada ah ee aynu maansadiisa iyo taariikhdiisa ku warinaynaa waa abaalkii uu ina gashaday oo aynu qaarkii gudayno. mansoolayaashii isaga garab wegliilay ee gantaalaha gabayada ku ceebeeyey way badnaayeen, maantana ma jiro ku ka mid ah oo inagu qaba qadarinta iyo maamuuska uu inagu qabo. mustaqbalka fogna carruurteedu ay u hayn doonto. isagaabaa kol ku gebiyey markuu lahaa nin waliba wuxuu garabsadaa loo gorgoriyaa. dhegaystayaal, barnaamijkan waxaan uga gol leeyahay inaan ku xuso hanad Soomaaliyeed oo hibadii maanso uu lahaa aan ummaddiisa ku hodin kuna hagardaamayne wanaaggeeda ugu adeegay, iskuna dayey inuu hantaqyada hadimada ee ay ku sii hoobanayeen kaga leexiyo. ragga sidaas ah sidaan soo sheegay tiro laguma koobi karee waxaan mooggan u jeedaa allaha u naxariistay cabdulaahi suldaan timcadde, geeraarshihii geeriyooday bilowgii 70aadkii ee uu cudurka kansarku ama carsaanyowgu markaynu ugu jeclayn inaga makalay. wuxuu la godgalay ka hamiga, ka walwalka, ka murugoodka aayaha dambe ee ummaddiisa Soomaalida ah haddii ay ku sii socoto anshaxa foosha xun ee qabyaaladda. waatay dardar cusub la soo baxday sanooyinkii lixdameeyihii markii raggii caynaanka dalka lagu aaminay si ay dano siyaasadeed oo u gaara ugu fushadaan ay ka siibeen irbaddii sunta ahayd ee dadweynihii gobonnimada u soo halgamay uu kuntameeyihii iyo afartameeyihii ku suuxiyey. waatay qolaba geesteeda u shirtay oo nin kursidoonihii uu boqolaal qof oo reer miyi ah intuu hargaha u tuuray ay tarab u la'anayeen. markay calowday ee qabyaaladii in yar mooyey ay maskax fiicnayd iyo tuxumaydba ku dhex hoyatay, waatay hebello badan oo gabyi ogaa ninba xuluushay hog qabiil oo naadi xisbi magac looga dhigay. timcadde maalintaa hog qabiil ma degmaysan
hunguri dhaqaalana ma geline maanse waddani ah oo xikmad iyo tusaalaysba leh ayuu kala roobaad kaga dhigay dhaga wax maqlayey iyo kuwa aan maqlayn dirkaba markii warmaha layska casaystay ee dhiigga qofku raqiis noqday markuu waayey qabiil ha joogtee wax fakar qaran isugu yimaada markuu arkay dhallinyaradii dalkooda maciinka u noqon lahayd oo xasarad qabiil awgeed waa baryaba cawgiirta laga yeelayo markuu ka shakiyey islaamnimada dadka uu sidacooda la seexan kari waayey ee ay ula ekaatay duul caqligii meel fog looga dhigay inuu ku dhex jiro waa kii timacadda 1967 mar lagu wado tiriyey tixdii dhagaxdhexeed la baxday ee uu ku lahaa docda bari dareeriga baddiyo saylac darafteeda dusha koofureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeenna oo idil haddaan dayay abwaabteeda nimaan duubiyadu naafa noqon deelka laga waaye dul iyo hoosba waanugu dhigee waadix dhagaxeede anunbaa damqanayee dhaguhu uma daloolaane dadkaan la hadlayaabaan lahayn dux iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga doonni laga saaray wixii hore u soo daashaday degashanaysaa doqonniimo kugu baahday baan cidi dabiibayne duulkii inkaar qaba jimbaa daasa duutumo ee damarkuu bakhtiyo meel kalaa dogob ka qiiqaaye waagii dilaacaa naxdimo dihin la sheegaaye doc hadday u wada jeesatoy dhowrta danaheeda ay duul walaalaa tahay oy duunka ka heshiiso dadka kama yaraateena waysdabar jaraysaa dubbe madaxa wayskala dhacnaa daayin abidkeen goortay iswada dooxatay baa daadu soo galay ubaxiinni waa daadiseen waana dubateene dulbaaxdiisa waad wada cunteen duhur dharaareed dariiq toosan soomaalidaay waa lagaa daday darajada ilaahay ninkii doonayaa hela ninka duday dastuurkiiyo waxyiga diintii ka carrow dugsi ma leh qabyaaladii waxay dumise mooyaane haddaynaan xumaantiyo dilka iyo daynin kala qaadka debaddaan ka joognaa sharciga daacadda ilaahe dambarkeedu waa jahannama iyo dogobki naareed dul iyo hoosba waan ugu dhigee waadix dhagaxeede aanunbaa damqanayee dhaguu uma daloolaane dadkaan la hadlayaabaan lahayn dux iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga doonni laga saaray wixii hore u soo daashaday degashanaysaa dirdir laysu laayiyo intaan weerar daba joogno ay dumarku weerkii sitaan danabadii waayey dabac yaalahaayey intaynu isu dooxayno uu sida dareemadu u yaal maydku dabadeeda kollaba doogsan maysaan haddaad dunida joogtaan sannadkii 1969 bilihii u horreeyey markii la galay ololihii doorashadii baarlamaanka ee ay tolla'ayay qayladii willatay waa kii timacadde dhabannada dhaygag la qabsaday ee tuhunku ka galay dadkan uu dhex joogo ee rag iyo dumar yar iyo weyn intii qabiil gaara sheegatayba dhinac u baxday waa kii tuhunku ka galay inay yihiin dad caafimaad qaba oo garanaya macnaha dawladeed iyo duluucda baarlamaanka laga leeyahay waa kii huganka uurka ahi ka keenay tixdii la baxday hadafka baarlamaan ee ay meelisyadani ku jireen ka habowday soomaaliday hilinkii toosnaayay hayaay iyo tolla'ay raganimaad kaga habsaanteene waa waxa halkaa idin dhigaad la hinqan weydeene hadday taladu kuu muuqataan lagula haaneedin hifaatiyo waxay kugu tartaa huqiyo ciilee anunbow hinganayee wanaag uma hilowdaan habarhabartan loo kala bixiyo hiririgtii yeedhay harqadii gidaarada la suray dumarkii heesaayey hadaf baa dhismaha baarlamaan lagu hubeeyaaye hadbana shicibku caynkuu yahaa lagu hoggaanshaayay hannaankii wax loo dooran jiray weli ma haysaane duulkii habaar qaba jimbaahaan kalow lulo ee nin qabyaalad heensaynayaa
guul ma haybsado oy halbowlaha suntii idin jartaad hinifka siiseene bahashii khalqiga heemisaa loo hadoodileye hadday taladu kuu muuqato aan lagula haaneedin hifaatiyo waxay kugu tartaa huqiyo ciileeye anunbow hinganayee wanaaguma hilowdaan. timacadde wuxuu ku waari doonaa maskaxda ummaddeenna gaar ahaan kuwa macnaha qarannimada dareensan ee aan dhagaxdhexeedka ahayn, kuwa rumaysan halkudhegga ah tol yar magaca soomaalida igala toolmoon ee shilinka iyo gobonnimada aan shilinka jeclayn. waxaa lagu xusuusan doonaa maansadiisa waddaniga ah ee uu ugu adeegtay wax u sheegidda ummaddiisa dibudhacu faraha kulul ku hayey welina uu ku hayo, una baahan cid hagta oo maskax xumaan ka xalan ku hoggaamisa. haddaan faalka xalay laasimay uu laaxin ku afyeeshay laxaha iyo ururkii, haddaan eegay labadiiba lugooyada qabyaaladii dhigtaa, waa lur aan harine ninka maanta liil gelinayaa waa mid liitiya. afartaa meeris ee timacadde xusuustiinna ha ku harto, hana idin solansiiyeen tol yar inuu magaca soomaaliyeed ka toolmoon yahay. dhegaystayaal, waxaa maanta intaa noogu dhan barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta oo aannu ku soo qaadannay in yar oo ka mid ah suugaantii la dagaalanka qabyaaladeed ee uu caanka ku ahaa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timacadde. dhegaystayaal, hadda ka hor waxaan barnaamijkan fanka iyo suugaanta ku soo qaaday qaar ka mid ah maansooyinkii ku soo arooray la dagaalanka anshaxa foosha xun ee qabyaaladda. maansooyinkii naxariistiisana allaha ugu deeqay cabdilaahi suldaan timacadde, gabayaagii ay tixihiisii ugu adkeeyeen jacaylka dalkayga, ilaalinta xornimadayda, badbaadinta calankayga iyo u feejignaanta cadowga midnimada dadkayga. marka laga reebo aabbihii waddaniyadda soomaaliyeed sayd maxamed cabdilla xasan, timacadde iyo cali xuseen waxay aniga ii yihiin labada maansoole ee aan waayey cid aan barbar dhigo, inkastoo aanan ummaddayda ka quusanna weli cid baddasha geeridoodii kadib aan la ahay. gobonnimada ka hor iyo kadibba ma yarayn halganka aan waawaanta lahayn maansoolayaashii qaybta libaax ka soo qaatay, mana qarin karo oo iftiinka qorraxdu wax sacabka lagu awdo ka weyn. ha yeeshee labadaasi waa timacadde iyo cali xuseene waxay bara ku dheeraysteen xamaasaddii aan kala joogsiga lahayn ee ay la godgaleen, guubaabintii wax ku qaadashada mudnayd ee ay ula taagnaan jireen guutooyinkii soomaalida ee xornimada u jeelanaa, ka runsheegga halista dhabta ah ee ay dadweynaha ka hor dareemi jireen, ka walwalka daacadda ah ee midnimada iyo xornimada qaybaha dhowrka ah ee dadkooda soomaalida ah loo kala jarjaray, aftahamadii, af aqoontii iyo luuqdii oo midba gaar ahaantiisa caanka ugu ahaa ee maansadooda dadka sii jeclaysiiyey. waxaan maanta ku ekaanayaa timacadde hal abuurkii degaanka iyo waayaha aan ina sugin ay u suura gelin waayeen inaan nolol ku arko, ha yeeshee aan ka dhex arkay kana bartay maansooyinkii uu ka tegey oo sida la ii sheegay ahaa dhaxalka keliya ee uu soomaali iyo qoyskiisiiba u reebay. horaa loo yidhi maansoolihii aan maansadiisu ku barin ama aadan ka ogaanin maansoole ma aha. aragtidaas oo aanan weligay ka shakiinna waxaan gowska ku sii xagsaday markaan ugu adeegtay darsidda timacadde oo sidaan soo sheegay maansadiisa mooye goob uu joogo aanan weli la soo joogsan. nin gabi jiray oo dalka ciraaq u dhashayna waa kii lahaa ida ashicru lam yahzuzka cinda simaacihi falaysa khaliiqan an yuqaala lahu shicru, oo macnaheedu yahay markii uu dhagahaaga ku soo dhacaba haddaan gabaygu ku gelgelin gabay in lagu sheega ma mudmee ha ku sheegin. timacadde gabaygiisa kolkaan maqlana xubin walba oo jirkayga ka mid ahi way dubaaxisaa, dareemadayda oo idili waxay isu diyaariyaan ereyadiisa oo idil siday u muutan lahaayeen. boqolkeed haddaan dhagaystana tixihiisu mar walba way ii hor lahaadaan. haddii aan ka helo macno aan duugoobayn oo inaan wax ku qaato aniga iyo ummaddaydaba ay dani ugu jirto,
haddaan ka helo af soomaali aan barxanayn oo si weyn ii raaligeliya dhaqanka da'da weyn ee dadkaygana iisii horkaca haddaan ka helo daacadnimo kal iyo laaba oo ku saynsaaban tuduucyada maansadiisa iyo luuqdiisa dananka weyn ee igu dhiirigelisa inaan rumaysto danta guud mooye inaanu maansadiisa dana kale ka lahayn intaa oo sifood haddii aan timacadda ka helo ammaantayda iyo ku dayashadeennaba sow ma mudna alla ilahe haa dhegaystayaal waxba yaanan arabta ku daarine qaarkiin ayaa iga codsaday inaan mar kale halkan ka maqashiiyo timacadde iyo maansadiisii taasina waxay ku dhalatay kolkay dhegaysteen barnaamij toddobaadkii hore baxay kuna saabsanaa maansoodahaas dalkiisa iyo midnimada dadkiisa caashaqsanaa aanu horaysiiye fakarkii timacadde sida ay maansadiisu inoo faahfaahin karayso wuxuu ku dhisnaa daryeelka xornimada oo uu aad u rumaysnaa inaan soomaalida hadiyad loo siine halgan iyo dirir kulul ay ugu soo hodatay in xornimadaas qiimaha weyn ku fadhida midnimada dadweynaha soomaaliyeed lagu dhowro in lala dagaalamo qabyaaladda oo aad mooddo inuu u arkeeyey inay tahay ansaxa foosha xun ee hortaagan weligiisna hortaagnaan doona horumarka iyo balaaraha ummadda soomaalida in dhallinyarada lagu tallaalo qadiyadda wadaniyadda loona halgamo sidii dadyowga soomaaliyeed cadaadiska gumaysiga looga xorayn lahaa iyo in diinta islaamka oo uu si weyn u taabacsanaa loo kaashado hagaajinta ansaxa iyo waxqabadka dadkiisa in badan wuxuu ku celceliyey dilka dhaca hantida dadka khiyaamada dadweynaha iyo qabyaaladduba inay yihiin wax diinta islaamku ay necab tahay oo qofkii ansax ka yeeshaa uu ka fog yahay jannada iyo dembi dhaafka eebe waa kii lahaa madadaaladii gabay indhoweyd ka maagaye murtida iyo arartii meel baan ku laalaye soomaaliyay maqal marna yeeli mayside qalbigaan madoobayn wuxuunbaa u muuqda mareegtii islaamnimo mar horaynu siibnaye sidkii muumin loo dhigay mid kalaynu moodnaye intays wada miraysaan magac yeelan maynee mintid iyo colaad baa magoolkeenna xiiraye yaa maali jirayey waatayna marisaye midigta iyo bidixdaa kala maarmi waayaye muruq iyo laxaad waa inagoo midowna hadduu ceelku maaxdumo maalkuma arooree nin qabyaalad muutaa wanaag buu ka maydhaye midha wuxuu ka goostaa murugiyo nacweeye nafta malakulmowdkii midhif dhaafi maayee muddadii markay tahay mayd yaallo weeye qabrigii madoobaa cidi kama maqnaatee munkar iyo nakiir baa malkadaa ku sugayee maal badan ninkii dhaqay marun baa ka raaciye nin waliba wuxuu mudan ilaahay ma moogee miisaanka aakhiro nina miiri maayee nin walaalkii mudayow adunbaa madluumehe mashaqada qiyaamaha ka macaashi mayside minhaadkiiyo qur-aankiiyo musheekhdaba su'aalo macaankii firdowsaad kolna muusan mayside macallin tusaale wacan buu ahaaye wuxuu soomaalida in doora u tilmaamay awooddeeda iyo horumarkeedu inuu ku jiro midnimadeeda dowladaha xooggale ee waaweyn ayuu kol walba farta ugu fiiqi jiray kolka uu rabo inuu soomaalida u muujiyo haddaan qabyaaladdu fadhiid ka dhigin inay ummadaha dunida la masoobi karaan horumarna ay gaari karaan waa kii lahaa dowladahan laga qayliyey qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaadan jiray qaanse iyo leebe qarfo iyo mar buu seexan jiray qalanqal hoosteede ha yeeshee quluub wada jirtaa qan iyo sheekhowe qalalaasa meel lagu lumay iyo qayla iyo weerar qorraxdii dhacdaba teennu way kala qaxaysaa qod la riday quraantada gasaa qoob dad wow halise hadduu geed qallalo roobku wow qamac kaliileede dirxiga qurunku uma soo uroo waaba quudsaday qabaa'il iyo teeroo la naco qaadkan lagu waasay qasdi teeray wada yeelato oy qowlka ku heshiiso qabyo weeye soomaalidaay qiiradaadana iyo nin qalbile qur-aanka u akhriyey qaafdhe ku haraadiye
kutubaa sidii lagu qariray qiila aakhiro qayrkii ka hare waa ninkii qalay walaalkiis markii uu Soomaalida dareensiinayay inaysan xoog ummadnimo iyo horumar u hawoon karin inta ay qabyaaladu jirto dirdirna ay isu laynayso waa kii lahaa intaad reer Saxardiid iyo reer Safdeeye Ducaali iyo reer Sareeye tihiino cuqaashii Sanqalooc iyo Suldaan Caarso ogaa iyo nin siyaasad ku dhuuntiyo subaxdaa ka casheeya idin seexinayaan salaan aad ka baxdaan salka meel aad dhistaan wanaag aad ka sugtaan iyo dunidoon la sinaanaa tacabkoo timayeesiyo saabuun xoor laga waayiyo waa dameersan madow oo waanay suuro gelayno sina loo arki maayo wuxuu ahaa allaha u naxariistay wadani goobaaba kulul oo ileen daacad buu ahaaye aan ereygiisa la dhaliilin wax lagu qoslo ayay la ahayd Soomaali oo duhur dharaareed Ingiriis iyo Talyaani xubnimadeedii ka maroorsatay in qaarkeed cagta xabashida iyo gumaysigeeda ku raali noqdo xoogagii cadaanka ahaa isagoo libaax ugu sarbeebanaya xabashida oo ka taag daranna ku sheegaya gorayo cawl oo ah dil gorayo dhadigeeda waa kii tixda caanka ah ku lahaa gumaysigu hashuu naga dhacay een gurayay raadkeeda guyaal iyo guyaal hashii gama aan noo diiday goobtay istaagtaba hashaan joognay garabkeeda guuraha habeennimo hashaan gebi walba u tiirnay waxaan soo guclaynaba hashaan rag isu soo gaarnay gaashaan dhigeedii hashuu galowgu eedaamay hashii geedankeedii rag badan goodku ku casheeyey hashay labada gaala isbarkani geedu diriraysay gacmaha lagu muquunsay xornimo noogumay garanne garra iyo guntane maalintay geesiisugu booday allaa noo gargaaraye markuu shicibku guulaystay geeraaradeedii hashaan anigu googooyey galoolkiyo maraagiyo hashaan kidiga gaylaanshay gaatiyo haraad badan hashaan ugu garaacaynay goortuu jidkeedii go'ay ay galabtii fool qaaday iyadoo candhada geejisay oo gobol ku sii daysay garaad midaan lahayn bay la tahay waad ka gaagixinay annagoon gantaalaha dhaca iyo haysan qori gaaban hashaan gaadaweynow libaax uga gaboon weynay inaan gorayo cawl uga tagaa waa wax soo guray